xaflad ballaaran oo maanta lagu qabtay masjidka As-Sunnah ee xaafadda Bialval ee waddanka Koonfur Afrika ayaa waxaa loo sameeyay arday ka qalin jabisay barashada iyo waliba xifdinta Qur'aanka Kariimka. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiinta dhalay ubadka wax ka barta madrasada, macallimiinta iyo madax ka kala socotay golayaasha kala duwan ee muslimiinta Koonfur Afrika sida madaxweyne ku-xigeenka Muslim Judicial Council MJC Sheikh Ahmed Sadiq, madaxa awqaafta Koonfur Afrika Sheikh Raqib Najar, xogayaha guud ee golaha islaamiga ah ee Albayaan Sheikh Ahmed Cabdi Ahmed Dheere iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana halkaas laga soo jeediyay maxaadarooyin isugu jira alla ka cabsi iyo dhiirigelin. ugu horeyntii waxaa hadalka furay imaamka masjidka As-Sunnah Sheikh Abdullaahi Cabdi Ibraahim isagoo wacyigelin guud u soo jeediyay dhammaan ka soo qayb galayaasha. inuu ilaahay la hadlo ruuxii jecel quraanka ha aqriyo la ilaahay baa kugu hadlaya sida Xasan al-Basri uu leeyahay rahimahullah taariikhdigaas waxa uu leeyahay quraankan isaga inama kaana qablakum ra'aw hada al-qur'aan sahaifatan rabbihim dadkii idinka ku horeeyay quraanka waxay u arkeen dambaale iyo warqado xagga ilaahay looga soo diray ilaahay u soo diray subhanahu wa ta'ala yani ilaahay dadka adoomadiisa kula khitaabaya subhanahu wa ta'ala marka haddaad doonaysa inuu ilaahay kula hadlo quraankan aqri haddaad doonaysa inaad ilaahay la hadashana salaada gal ila markaas ilaahay baa la khitaabaya subhanahu wa ta'ala lama najoonaysa. xafladan ayaa waxaa soo agaasimay maamulka madrasada As-Sunnah waxaana sanad kasta waqtigan oo kale lagu qabtaa masjidka As-Sunnah ee xaafadda Bialval iyadoo lagu soo bandhigo marxaladii kala duwan oo ay soo martay madrasadan, balse xafladan ayaa kaga gidisan kuwii hore in ay ka qalin jabiyeen arday quraanku loogu bilaabay madrasadan. madaxa dacwada ee gobolka Western Cape Sheikh Maxamuud Maxamed Adar oo goobta ka hadlayay ayaa ammaan ballaaran u soo jeediyay macallimiinta, waalidiinta iyo waliba ardayda maanta qalin jabisay oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo intaba quraanku loogu bilaabay kuna dhameystay madrasada As-Sunnah. runtii ummadan hadda afkeeda ku hadlayo waa ummad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sahlay uu gargaaray uu fududeeyay oo fadli ummadaha kale kaga khaas yeelay barashada iyo xifdinta quraanka. ma Ilaahay quraanka fududeeyay way waa waxyaabaha runtii ku tilmaamay ummadda Soomaalidu quraanka inay xifdiyaan. arrinka kale runtii muhiimka ah waxa oo aad yani u soo jiidanaya dadka annagu waxaynu ahayn dadka Soomaalida tacliinta gaar ahaan dumarka oo kale aad baa loo waxa gabadha marka wiilka quraanka waxa la jiro dhowr wiil gaar leh baa waxa diintii uu barto meel quraanka lagu bartaa loo diri jiray hay soo barto gabdhaha iyaga waxa loo diri jiray xoolaha iyo waxa la mushaaro ariga raaca magaalada dil joogana jidari iyo hawsha guriga iyo waxa laakiin waxyaabaha runtii qiimaha la maanta ee gaarka waxa dadka quraanka dhameeyay gabdhaha u badan yihiin waxyaabaha horumarka oo asaxul islaamiga runtii ay soo kordhisay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyay taasoo tusinaysa in dumarka iyo raggu tacliinta ay u sameeyeen. walow ay jiraan arday kale oo quraanku hore u dhameysay oo maanta shahaadada la guddoonsiinayay, macallin Nageeye Ahmed Nadiir ahna maamulaha madrasada As-Sunnah ayaa gabay macaan ku cabiray dadaalka waalidiinta iyo waliba ardada. xafladan intii ay socotay ayaa waxaa abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyay ardaydii qalin jabisay iyo waliba macallimiintii wax soo bartay maadaama ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay wax u bari lahaayeen ardaydooda. Cabdikariim Mursal Faarax, TV-ga Universal, Cape Town.